allaha u naxariistee tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay soo ifbaxday geerida marxuun madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaadhka Soomaaliya Korneyl Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa waxaa soo badanayay tacsiyaha kala gedisan ee markaasi ay dirayaan dhammaanba ummadda Soomaaliyeed oo markaasi uu ahaa madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya isla marhaantaasna ay dhammaanba dadka Soomaaliyeed ay tacsi tiraanyale u dirayeen qoysaska iyo qaraabada uu ka geeriyooday iyo sidoo kale shacabweynaha Soomaaliyeed urur ka mid ah ururada haweenka ayaa waxa uu tacsi tiraanyale u diray dhammaan beheladii iyo qaraabadii iyo ummadda Soomaaliyeed uu ka geeriyooday marxuum mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo ahaa madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaadhka Soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah dadkii tacsida dirayay halkan waxaa tacsi tiraanyale uga dirnaa marxuum Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo ahaa madaxweynihii ummadda madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun ummadda Soomaaliyeed madaxweynuhu u sameeyay bay ahayd marka ummadda Soomaaliyeed meel walba joogta waxaan direynaa tacsi tiraanyale eelada iyo qaraabada ka dhinteen waxaan leenahay Allah isna ha u naxariisto idin samiriyo imaan idin siiyo daanahay ururka suras tacsi balaadhun direynaa madaxweynihii hore Cabdullaahi Yuusuf Axmed dowladda Soomaaliya oo ku geeriyooday sutaga Imaaraadka Carabta annagoo ku hadlayna dhammaan ururka suras waxaan leenahay Allah ya raxmaan raxiim inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun walaalayaal muslimiinta dhammaantood wixii hore u dhintay waxaan leenahay Allah u naxariisto innagana Allah inooga daba naxariisto ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri kulli nafsin daa'iqal mawt wada tacsiinayna oo waxaan halkan tacsi tiraanyale uga direynaa madaxweynihii hore Cabdullaahi Yuusuf Axmed inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun banaanay meel kasta aan joognaba ummadda Soomaaliyeed dhammaanteedna waan wada tacsiinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidoo kalena tacsi tan la mid ah waxa ay ururkani u direen ehladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday injineer cabdirashiid jaamac ogle oo markaasi ahaa agaasimihii telefishinka Soomaalisaad oo isna horaantii bishani ku geeriyooday dalka Ingiriiska inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun halkan waxaan tacsi tiraanyale uga soo jeedinaynaa waxaan ka diranaa laba tacsiyadood haddaan nahay ururka suras labada tacsiyadood ka horeysa agaasimihii guud ee telefishinka Soomaalisaad cabdirashiid jaamac ogle ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay naxariista janno ka waraabiyo dadkii eheladii iyo qaraabadii uu ka dhintay iyo ummadda Soomaaliyeedna samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun anigoo ah magacaygu Najax Isxaaq Cabdi kuna hadlaya afkas ururka Somali Unity Relief of Service suras waxaanu dhammaan laamahayaga ururkan oo ka jira dal iyo dibadba tacsi ballaaran oo tiraanyale ay u dirayaan agaasimaha guud ee Soomaalisaad islaan cabdirashiid jaamac ogle isla markaasna ahaa lafdhabarta khaatumeysteeda Soomaaliya waxaan leenahay Allah ya raxmaan raxiim eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyoodayna waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo ilaahayna qabriga ha u nuuro